ninkani waa maskaxdii ka dambeysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar, ninkii kor u qaaday sharafka iyo quwadda dowladda Turkiga ee awoodda badan. Madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu ku abaalmariyay gabadhiisa. Waa ninka loogu magac daray diyaaradaha Bayraktar, waxaana lagu magacaabaa Selçuk Bayraktar. waa ninka Turkida u farsameeyay Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, iyo qaar ka mid ah diyaaradaha dunida ugu casrisan ee drone-iska loo yaqaan. Waxaa ciil ka hayay Mareykanka oo Turkiga u diiday inuu ka iibiyo diyaaradaha drone-iska, balse 10 sano kadib waxa uu sameeyay diyaaradaha ugu casrisan dunida ee aan duuliyaha lahayn. Haddaba, sheekadan ayaan ku eegi doonaa taariikhda ninkan, waxbarashadiisii tiknoolajiyadda iyo diyaaradaha Bayraktar. Muuqaalkana sii faafi. Sanadku waa 2005. Wiilkan yar ee halkan idinkaga muuqda waa Selçuk Bayraktar. Waxa uu tijaabo ugu jiraa sidii uu ku soo saari lahaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska. Selçuk Bayraktar waxa uu la circiirayaa oo ciil iyo caloolyow ku haya in dalkiisa Turkiga ee uu ku dhaato uusan lahayn diyaaradaha casriga ah ee drone-iska. Hamiga ah in dalkiisa uu u dhiso diyaaradaha dagaal ee dunida ku kala hormartay waxa uu qabay ilaa iyo yaraantii. Wiilkan oo lagu magacaabo Selçuk Bayraktar waxa uu ku dhashay caasimadda Istanbul ee Turkiga 40 sano ka hor. waa wiil dhalashadiisu ay mahdiyaan ilaa iyo haatan dadka Turkiga. Selçuk Bayraktar waxa uu waxbarashadiisii asaasiga ahayd ku qaatay Turkiga ilaa uu scholarship ay dowladda Turkiga ugu dirtay Mareykanka. Jaamacadda Pennsylvania ee cariga Mareykanka ayuu ka helay minxo waxbarasho. intii uu ku guda jirayna waxa uu farsameeyay diyaaradii ugu horeysay ee dagaal. xirfadiisa aqooneed iyo maskaxda cajiibka ah ee wiilkan Selçuk Bayraktar waxa aad ula cajabay guud ahaan caalamka, ilaa dowladuhu ay u soo bandhigaan waxbarasho bilaash ah oo ay isku diriraan in dalkoodu uu wax ku barto. laakiin dowladda Turkiga ayaa ka faa'iideysatay aqoonta ina Bayraktar ilaa uu sameeyay mid ka mid ah diyaaradaha dunida ugu casrisan ee aan duuliyaha lahayn. xilligaasi Turkidu baahi weyn ayay u qabeen farsamaynta diyaaradahan maadaama qubadaha dunidu ay ku baratamayaan. waxaa sidoo kale Turkiga markaasi jahawareeriyay dowlado drones fake ah ka iibiyay iyo Mareykanka oo u diiday inay ka iibiyaan diyaaradaha casriga ah. Selçuk Bayraktar wiilkan da'yarka ahaa ayaa u soo baxay Turkiga. markii uu ku soo noqday dalka waxa uu soo saaray diyaaradii ugu horeysay ee dagaal ee Turkidu ay sameystaan. diyaarad casri ah oo nooceeda horey aan loo arag, taasoo loogu magac daray Bayraktar, ayuu soo saaray Selçuk Bayraktar. Bayraktar TB2 iyo Bayraktar Akinci waa qaar ka mid ah diyaaradihii uu farsameeyay wiilkan Turkida ah, waxaana magaca diyaaradan laga keenay Selçuk Bayraktar oo ahaa maskaxdii ka dambeysay iyo shakhsigii alkumay farsamadan cajiibka ah. 10 diyaarad ee ugu casrisan dunida ayay ka mid noqotay Bayraktar, waxaana hadda ay ku jirtaa safka hore ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska loo yaqaan. Selçuk Bayraktar waxa uu aasaasay shirkadda Bayrak oo farsamaysa diyaaradaha, waxaana aqoontiisa uu baray boqolaal Turki ah oo haatan soo saara diyaaradahan casriga ah. waxa uu xaqiijiyay hadafkiisii. waxa uu ka dhabeeyay hamigii malaayiin Turki ah ay lahaayeen. Turkida waxa uu ka yeelay dowlad quwad leh oo la baratami karta qubadaha caalamka. Mareykanka oo 10 sano ka hor ka diiday Turkiga inuu ka iibiyo hubka casriga ah ee drone-iska, hadda waxa ay kula tartamayaan Bayraktar oo xataa farsamo ahaan ka horeysa kuwa Mareykanka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku abaalmariyay wiilkan Selçuk Bayraktar gabdhihii uu dhalay midii ugu jeclaa. Selçuk Bayraktar waxa uu xidid la noqday Erdogan maadaama hadiyad looga dhigay gabadha uu dhalay madaxweynaha Turkiga. haddaba maxaynu ka baran karnaa sheekada ninkan lagu magacaabo Selçuk Bayraktar? maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda leh aan looga faa'iideysan? sidee ula tartami karnaa dal ka faa'iideystay aqligiisii? dhalinyarada, aragtidaada hoos nagula wadaag,
muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee